السلام عليكم مدنيال مروي waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan meel walba oo adduunka dacaladeeda ka joogtaan soo dhawaada saaxiibayaal sanadii afraad ee hijriyada dagaalkii Uhud kadib waxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimiday laba qabiil oo la kala yiraahdo Utal iyo Qaara waxay raadeen rasuulka Allah waanu islaamay diyaarteena way ka fog tahay magaalada Madiina waxaan deganahay meel Maka u dhow sidaa darteed waxaan rabnaa inaad nagu darto qayb kamid ah saxaabadaada si ay noo baraan diinta oo shariicada ay noo fahansiiyaan quraanka noo baraan diinta Ilaahayna ay noo fahansiiyaan maadaama aanu ka fogna rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray 6 saxaabi ayuu ku daray nimanka ayaga ah si diinta ay u fahansiiyaan oo ay u baraan shariicada 6 saxaabi waxay ahaan 6 saxaabi oo qaaliya oo rag waaweyn ay ku jiraan waxa ugu caansanaa saxaabiga la yiraahdo Caasim ibn Abi Thabit iyo Khubayb ibn Adiy iyo afar kale oo saxaabi ay ahayn markii lagu daray way israaceen wayna ay bixeen nimankan Utal iyo Qaara markii ay gaareen diyaartoodii oo meesha la yiraahdo Rajiic ku taala Rajiicdu waa meel dhowr mayl ka fog magaalada Makka ee aan naqaano maanta halkaasna waxaa degan qabiilka weyn ee loo yaqaan Hudayl oo labadan qabiilba ay ka tirsan yihiin nimankii markii halkii la gaareen saxaabadii way khiyaameen oo way dhagar ay ku sameeyeen oo ballankii ay ka bixeen nimanku muslimiin ma ahayn dan kale ay lahaayeen waxa la doonayay nimanka saxaabada si loogu gacan geliyo cadow kale oo ay leeyihiin oo ah Quraysh hadaba daawada halkii markii la gaaray nimankii ballantii ay ka bixeen waxayna u qayshadeen nimankii reer Hudayl ee isku qabiilka ay ahaayeen kadibna 100 dagaalyahan wax ku dhow oo reer Bani Hudayla ayaa isku weer ka qabtay saxaabadii 6 ahaa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu soo raaciyay nimankan in ay shariicada baraan hadaba daawada markii ay isku wareejiyeen nimankani 6 saxaabi isku weer ay ka qabteen waxay yiraahdeen anagu ma doonayna inaanu idin dilno waana ballan iyo ahdi isdiiba idima dilayno Quraysh ayaanu wax idin kaga bedelaynaa marka sidaa darteed waa ballan ahdi idima taabanayno isdiiba carabta dhexdeeda ogow daawade hadii ruux uu yiraahdo waa ballan ahdi laguma taabanayo waxay ahayd sidii ay u balaqaadeen oo niman ballanta ilaaliya ay ahayn kadibna markii ay dhahaan isdiiba oo waxba hays waxaynina isdiiba idin dili mayno waxa la sheegay marka qoladan reer Hudayl in reer Makka ay wax kala dhaxayeen dagaal dhaxmaray darteedna reer Makka ay maxabiis ka hayeen nimanka reer Bani Hudayl oo ay ka tirsan yihiin Utal iyo Qaaradan soo watay nimankan kadib waxay yiraahdeen waxaan ku bedelaynaa nimanka ayaga ah oo halkaas ayaanu idin wareejinaynaa annaga ayaan la soo baxaynaa marka waxba idin dili maynaa niman yahow isdiiba saxaabiga la yiraahdo Caasim ibn Thabit iyo laba saxaabi oo kale la jirtay waxay yiraahdeen ama aniga Soomahan Caasim waa hadlay wuxuu aniga Soomahan ilaa marka 6 qof weeye 100 ayaana isku weer ka hayso yani hadii dagaalamaan ugu dambeyn waxay ku dambeynaysaa adigu aan wada jeednaa daawada waa geeri qasab hadaba rag isku ra'yi ma noqonayaan markaan oo kaleeto Caasim waa ra'yigiisa ayuu doortay wuxuu yiri aniga Soomahan ku degi maayo gaal maganti anigu gaal magan uma noqonayo waan dhiman karaa laakiin way adag tahay waana habeenkii xala tagay inaan gaal magantiisa galo Caasim ibn Thabit waxa ku raacday laba saxaabi ayaa ku raacday warkii taladii ku raacday oo ayaguna qaatay go'aankii Caasim oo qaatay oo ahaa inaan gaal magantii aan lagu digin oo aan la isku dhiibin gaal si kasto arintu tahayba inaan marnaba la isku dhiibin gaal hadaba nimankii waa ay dagaalameen markii la dagaalamay oo daawade hadii aan wax yar dib ku celiyo dagaalkii Uhud markii uu dhacayay Quraysh waxa ay soo wadatay dumarkeedii iyadoo maadaama ay dagaalkii Badr laga guuleystay aad u xanaaqsan ayaa waxay soo ka xisteen dumarkoodii oo waxay yiraahdeen maanta guul mooyee wax kale nama deeqaan magacanaga waa lumay carabo idil baan ku ceebownay 300 oo nin baa dagaalkii Badr naga guuleysatay waa ku qasbanahay markaan inaan guuleysano sidaa darteed waxay soo ka xisteen dumarkoodii dumarka markay soo ka xisteen dhammaan yani Hind bint Utba hogaaminaysa oo aabaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed intaba dagaalkii Badr ay muslimiintu ku dileen oo cara la dhimanayso ayaa hogaaminayso dumarka Quraysh dagaalka markii la soo galay marka ciidanka waxay ugu tala galeen inay gubaabiyaan oo fuliga u soo cararin oo waad garanaysaa Soomaalidu waa tan tiraada nin naag wado iyo rati wadaba kaama gambadan kaama leexdaan marka waxay ugu tala galeen ciidanka caraadiyaan oo ay gubaabiyaan markii gabadhu ku tiraado warhaada isii qorage garabsaar ka qaado yani waad ogtahay xaaladda dhacayso waa dhimasho meesha ugu dambeysay waad galaysaa maana waad ku dhimanaysaa wax ka dhacaya ka dhacan marka dumarku waxay u soo wateen nimankani inay ku caraadiyaan ciidankooda si aysan ciidanku u jabin dumarkani marka ciidankii ayay soo daba kaceen ayagoo garaacayo durbaanka oo waxa waaye hees ku qaadayo in tuqbilu nu'aaniq wa nafrushu namaariq aw tudbiru nufariq firaaqa ghayr waamiq maxay leedahay Hind bint Utba iyo kuwii la socday dumarkii la socday durbaanka ay garaacayaan waxayna ku heesayaan hadaa dagaalka aad qaabishaan nu'aaniq xabadka ayaa la gelina wayda mucaanaqaynina wa nafrushu namaariq sariirtan waa firaashayna howlaha waa isku aadinayna ma garanaysaa yani gool wacan baa diyaar ay leedahay aw tudbiru nufariq hadaa laakiin dumarka jiidisaan oo cadabka aad ka soo jabtaan waanu kala tagaynaa firaaqa ghayr waamiq kala tag aan la jeclaysan yani waa dhiirigelin meesha ugu dambeysay
ciidanka inuusan laaban baa la rabaa oo raggani guul mooye ama geeri mooye wax kale aan meesha aan kala laaban haddaba daawaday dagaalkii Uxud markii gacanta sare ay goobta ku yeesheen nimankii kufaar Quraysh oo maaragtay muslimiintii nabi shaydaan u qayliyo nabigu waa la dilay dhacday muslimiintii qaar ay Madiina u carareen qaar ay buurti Uxud rasuulka la koreen dumarkii maadaama dagaalkii dhan uu iishay oo Quraysh gacanta sare ay yeelatay shuhada badan oo muslimiin ay meeshii yaalaan dagaalka ay soo galeen gudaha ay soo galeen si ay u suurad xumeeyaan shuhadadii muslimiinta hindoo kale way soo degtay Xamza raadisay maadaama aabaheed dilay dagaalkii Badar calooshiisa jeexday beerkiisa la soo baxday way calalisay afka gelisay way calalisay dhagihii bay jeexday sankiisa jeexday waxa la sheegaa inay ka sameysatay dhiga kuul iyo jijimo inay ka sameysatay hilibkii shahiidkaas Xamza radiyallahu anhu waxa kale ku jiray islaantii waxa way Amr ibn Aas iyo dad badan dumar badan ayaa ku jiray laakiin daawada gabadhaas kamidi xaaladaas farxadda ay ku sugan yihiin ayadu kuma sugnayn xaalad kale ayaa haysatay sababtoo ah dagaalka waxa ku jiray wiilasheedii oo 3 ahaa iyo ninkeedii ayaa ku jiray ninkeedii waxa oranayay طلحة ابن أبي طلحة أيال الأوراني ويلشيدنا سدح ويل أيال أش ومد واحد لهي مسافع من الجلاس من الكلاب أيال لهي سدح دي ويل أيو نين كيدي بمالنا كما شيكتو مركا محي فرح ذا محي بود دا أيو بود كان فرح ذا أي هندب أنتو عضبية كل شيران أيدكم مجرد هذا بقى وحي بالله إني أرادو قابت الدجال مرنا أي بدح وأرادو مرنا أي مدك وأرادو أي بالله دي جبنا وحل الأوراني مقعدة سلافة بنت سعد أيال الأوراني سيجي إني رادسو إيو أولادي دي سدح ذا ودجال كوجري حاجة تبين ما نركو حاجة تبين أرد أي بالله دي هذا بقى وحير مركي أرادبا نينكيدي أميدة ومسلمين تو أي بقى ركعت تخلصين أي إنها كل فت وروا بلاي ويسيب برورات هذا أنا أرد كلا أي بالله بل سي ويلش الرادس ويلش هذا أنا الله بقى الإسكار سارين أي أرد لما ويلو أي نشي أميدة أميلي على إسكار سارين أي أرد كيس دحاد بعد نشأ سوي أراضي كيس دحاد نفطه كده غيرته أي مال أوتقت لأنه يكون فريسة مركزي نبتي ده صارت اللي هو هاي مركزي نفطي كده غير أي واحد يا هاي يا سانكو قلي هاي وأجيبه وياه مركو هذا المعجبة نفط يا قبنا يصحدنا ويكون على إلى مركز دبوا يرهاي وحسان إجلي عاصم بن أبي ثابت ولا له ناس أيادلي هو عاصم تصدح ولا لا تأيو دجالك أحد إسكور صاري من دجاليها بلاية أيوه هاي حتى حلقي دجالك بدل وداعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابته كويري بل إيش هيك دجالك سيدا ودجال ميسان دجالك محاك تقارن إيش هيك أيوه كد من وحى استاجي صحابي كان عاصم بن أبي ثابت قصة إنه ما أنت يكون صعب سطح وحول رسولك الله عدو جمركم نوجر بقول متر وحنو كذا شقيننا فلارت أيانو كذا شقيننا أياد أيانو كل شامينه أنو كباب إننا مركو صار دافع فلارت هالجي بقول كم متر صار دافع مال ورم كجارة ويمادنا ورم أيان كذا شقيننا إلى ورموه أي جبان مركو ورموه أي جبان والله سيفته منا هو سيفته أيان مرة بدي حميد سيفته أيان كذا شقيننا إلى رسولكم مركز بس على أصله ومدح أقول له لي أو يري سيدا سوي دجالكو هكذا الحرب سيدا وي قفك الدجال يها ودجالمو سيدا ودجالمو عاصم ابن أبي ثابت هذا بدأ وده عاصم وانينكا أسجع الدجاليانكا سدح ولال وإسلام دلاتي أيو دجالكي أحد إسكور ساري سدح دنا إسكو هوي يا أبا يا هين وحنا دشي جبدان ليرى هذا سلافة بنت سعد قوبت دجالكا هوري كذا الأرديس gabadhii markii musiibadaas ay ku dhacday wiilkii markuu inta u jawaabay yiri waxa ay dilay walaaladayna dilay Caasim ibn Abi Thabitna nafta ayaa deysay oo halkaas ayuu ku baqtay kadib gabadhii waa ay barooratay waa ay qaylisay waa ay booday waxayna sharad ku gashay nadar ku gashay inay Quraysh ay u keento Caasim ibn Thabit mooyaane inaanay harsanaynin amna aanay cunaynin oo hintana aanay joojinayn ay ballan ku gashay iyo sharad ku gashay Qurayshna arrinta ay uga fadhiso hadaba taawade Caasim waa ninkaas waxay islaantaasi sharad ku gashay in loo keeno mooyee inaanay harsanaynin har iyo habeen inaanay harsanin markii loo keenana ay sameyn doonto inay madaxiisa inay qamro ku cabi doonto intay maskaxda iyo waxa gudihiisa ku jira ay ka bixiso oo madaxiisa godka ah inay qamro ka buuxsan doonto deedna ay qamro ku cabi doonto madaxaas ceelka ay qabtay darteed markii qamrada ku cabto nadarkeeda ay oofisay kadib ruuxi u keenay ay dahab uga buuxin doonto oo madaxaas oo buuxo oo dahab ay siin doonto ayay sharad ku gashay Qurayshna ay u sheegtay dagaalyahanadii Quraysh oo idilna iyo Carab oo idilna arrintaas ay u sheegtay Caasim ibn Abi Thabit hadaba daawaday waa ninkaas oo madaxiisa ayaa lacag saaranta ma maqla jirtay hebel madaxiisa Mareykan inta soo lacag saaray Caasim waa ninkaas arrintaas waa arrin qadiima oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu soo hijroonay dagaalkii Badar baynu kaga hadalnay waa kii madaxiisa la saaray 100 halaad oo cascas oo geela midka ugu sareeya marka Caasim madaxiisa jaa'izadaas ama abaalmarintaas adag oo qaaliga ayaa dul saaran madaxiisa oo dahaba in la siin doono Caasim marka arrinta ayada ayuu xusuustaa hadaba wuxuu yiri anigu markii nimanka ay khiyaaneen wuxuu yiri ama anigu Soomaan gaal magantii ma galayo waxa doontaan sameeyo asaga waxa ku raacay laba saxaabi maadaama ay 6 ahaayeen 3 ayaa markaa la kala noqday oo 3 in isdhiibaan ay ogolaadeen oo Khubayb iyo laba kale oo saxaabi laakiin Caasim ibn Thabit iyo labadii saxaabi oo kale waxay yiraahdeen anagu gaal magantii marnaba
habeenkii xala tagay ka taa inaan galno kadibna caasim uu isku hareereeyay wuu la dagaalamay ilaa uu mid dilay labana ka dhaawacay kadibna way ka badnaayeen maadaama ay ka badnaayeen midna uu dilay labana uu dhaawacay warma ayay isugu geeyeen waana ay dileen halkaas ayay ku dileen saxaabigan intuu noolaa ayuu ilaahay baryay wuxuu yiri ilaahay oo diintaada baan ilaaliyay oo u dagaalamay ilaahay oo markaan dhinta kadib jismigayga gaalada ka ilaali ducadaas ayuu ku duceystay labadii saxaabadeed asaga ku raay noqotana ayana waa ay shahiideen oo halkaas ayay ku dhinteen saddexdii saxaabi kale oo Khubayb iyo labadii saxaabi kale la socotayna way isdhiibeen markay isdhiibeen bay waxay sameeyeen ilaa niman gaala oo ballan ba aan lahayn waa ay xirxireen ileen hadii magangelin uu siiyo ma ahan in lagu xiro markii xirxireen baa saddexdoodii mid kamid ah wuxuu yiri wallahi tani waa ballanka baxidii ugu horeysay inta ka sii dambeysay waxa gadaal iga sameyn doonana ma sugayo waraan kadibna uu la dagaalamay seef ma haysto way ka qaadeen laakiin uu jiiday inuu raaco u hogaansamo ayuu diiday kadibna way jiideen markuu diidana waa ay dileen labadii saxaabi oo soo hortana waxay u wadeen magaalada Makka Khubayb ibn Adiy iyo saxaabi kale xusuusna daawade Khubayb ibn Adiy dagaalkii Badr ayuu wuxuu dilay nin weyn oo gaala ayuu dilay sida darteed waa ay wadeen Makka ayay geeyeen reer Makka ayay u dhiibeen markii reer Makka ay u dhiibeen waxay kaga bedesheen labadii maxaabiis ayay kaga bedesheen Khubayb iyo saxaabigii kale oo la socday saxaabigii kale waxa iibsaday Safwan ibn Umayya oo yiri waxaan u dilayaa aabahay ayaan u dilayaa maadaama aabihii lagu dilay dagaalkii Badr Umayya ibn Khalaf oo Bilaal iyo saxaabada socotay ay dileen ciil buu qabay wuxuu yiri kan ana iibsanaya waxaan u dilayaa aabahay baan ugu aarayaa adoon walhaaba u dhiibay dil ayuu yiri waana u dilay ama saxaabiga leeyahay Khubayb ibn Adiy waxa uu ku soo aaday ashhurul hurum afarta bilood oo xurmada leh carabi xilliga jaahiliga way xurmayn jireen gudihiisana waxba ma aanay dili jirin hatta ninku hadii uu la kulmo daawada arintan muhiim waay hatta ninku hadii uu la kulmo ninka aabihii iyo walaalkii dilay haduu la kulmo afarta bilood oo xurmada leh ma uusan taaban jirin waxba ma aanu yeeli jirin oo agmari jirin saas uu fiirsho ayuu agmari jirin anagu maanta talow dadkan Soomaaliyeed wax ma ilaaliyeen dhiig asoo ilaahay muharram ah awalba ayaa haddana bish ashhurul hurumka ee qabalka Soomaaliyeed isdilayaan oo iyada la soomay xataa Ramadaan la dilay oo macallimiinta la dilaya Soomaaliya meel xun bay gaartay ilaahay xalkeeda hagaaji haddaba daawada Khubayb afarta bilood ashhurul hurumka markay dhamaato ayaan dilaynaas sida darteed inta wixii ka horeeyay maxbuus ayuu si ahaanaya waxa loo dhiibay gabar oo qaraabo la ahayd ninkii uu dilay maalintii Badr oo Khubayb dilay ayaa loo dhiibay gabadhii ay ahay jirtay gabadhii waagi daba islaamta waxa ka sheekay jirtay Khubayb sidoo agteeda ku ahay waxay tiri maxbuus Khubayb ka khayr badan weligay inta noolaa maan aragay waxba ma aanu yiri jirin khayr badan buu ahaa tir fiican halkaas ayuu iska joogi jiray waxa ka sheekaysay sidii uu cibaadeysan jiray sidii uu dukan jiray waxa ka sheekaysay hatta ilaahay inuu samada irsaaqad kaga soo daadan jiray oo kaga keenin jiray oo waxaan arkay tir asoo cinab cunayo magaalada Makka oo idilna wax cinab leeyahay ma uusan aalimi tir waraan maxbuus oo xirxiran oo korkiisa qaful iyo xadiid bira ku xirxiran waxay tir marka waxaan arkay jiray cinab iyo timir waaweyn asoo cunayo oo loo keenin jiray ilaahay baan ku irsaaqi jiray saxaabiga ayuu ahaa wadabayna bilihii markay dhamaadeen ayaa saxaabigii Khubayb ibn Adiy la keenay meeshii lagu dili lahaa Abu Sufyaan ayaa yiri waxna weydiiso wuxuu yiri waxaan weydiisanayaa inaad fasaxdaan si aan laba ragcadood aan u dukado jannada way sii daayeen labada ragcadood oo dukaday khafiifna uu ka dhigay oo ma aanu dheereen markii uu salaadii ka soo baxay ayuu wuxuu yiri wallahi hadaadan dhehaynin geerida ayuu ka baqayaa sida darteed buu salaada u dheeriyay salaada waan ku raaxaysan lahaa waana dheerin lahaa ayuu Abu Sufyaan ayaa weydiiyay asoo ku xiran tiirkii lagu salbiyay asoo ku xiran ayuu weydiiyay ma jeceshahay Khubaybow Maxamed inuu booskaaga maanta ku xiraado oo aan dilno adiguna reerkaagii ahalkaagii adoo jooga aad caafimaad qabto ma jeclaan lahayd Khubayb madaxa uu saan qor qaaday Abu Sufyaan ayuu fiiriyay wuxuu yiri wallahi Maxamed meeshiisa maanta Madiina uu joogo soo Madiina ma joogo hadda Madiina asoo jooga in qodax meeshiisa ku muddo ma jecli weeyo aniguna aan caafimaad qabo kadibna Abu Sufyaan wallahi yaa waxa uu yiri wallahi ma ana arag qoom dadka asxaab Maxamed ka daran sida asxaab Maxamed u jecel yihiin man kale ما أنا أقول بلاد المدة ديننا وإدلين أنت ندلين ومرك هبار أيوب بالله إنه يراد إلهي وقريش بابي إلهي وبابي قريش متها كريب أيوب معاوية بن أبي سفيان أم مالك أبيه لصعدي مركو إسلامي واجي دب النقضي معاوية أمير المؤمنين واكي نقضي وكشي كين تري وحول يجري ما أنت قبيب لدلي أبي أيان لصعدي قبيب مركي وهبارك بالله بحور أبي قريش إدلي وحي ماشي جوجل الوا حبتك أيان لك اللي وحي من سنين قفكم بكو هبارتم يهدي لك الله قالها habaarku inuu korkooda inuu barayo ay aaminsanay maxamed la soo tuuray ay malayaan xabad la soo tuuray habaarku habaar laga gabanayo wuxuu marka waan ka gabaday aabay maalinka madaxiga ay dhulka galiyay oo yiri habaarku ii kormaro kadibna waa ay dileen saxaabigaas radiyallahu anhu halka ayuu ku shahiiday Khubayb ibn Adiy nimankii Quraysh markii ay maqleen nimankii Quraysh markii loo keenay Khubayb ibn Adiy oo nimankii reer Hudayl ay u keeneen ayay waxay maqleen nimanka la dilay inuu ku jiray Caasim ibn Thabit kadibna waxay dhaheen madaxiisa aanu baahanaa si aan u siino gabadhan la yiraahdo Sulaafa binti Sacad oo nadar ku gashay in madaxiisa khamr ku cabto marka madaxiisa loo keen teedna nimankii reer Hudayl waa ay soo baxeen isku warayay ka qabteen meedkiisii waxay isku dayeen inay madaxa ka soo gooyaan kadibna Ilaahay ayaa maadaama saxaabigan Caasim bin Thabit uu duceystay oo Ilaahay meedkayga ilaali markaan dhinta kadib Ilaahay waxa uu soo diray
shinni iyo xoon ayuu ilaahay usoo diray meydkiisa waana ay qaado waayeen markay soo aadaanba shinnidii iyo xoonkii ayaa kusoo degaya oo wejiga kaga degaya oo qaqaniinaya oo dhabdhahayo ku dhagayo deedna way cararaan maalintiiyo idil waa ay usoo dhawaadan waayeen dabadow daawadeen wax bili aadana oo ka hor taagan meydkan inay qaataan ma jirto waxaa la dagaalamaya shinni iyo xoon oo ilaahay ku difaacaya meydkan saxaabigan maadaama asagu alla bariyay ilaahayna dacwadiisii u aqbalay maalintii idil way usoo dhawaan waayeen xoonkaas iyo shinnidaas ayay kaga soo dhawaan waayeen kadibna waa iska laabtay waxay yidhahdeen khalaas habeenku ha galo marka habeenku galo xoonkan iyo shinnidan way iska baxayaan kadibna markaas ay madaxiisa gooyinaa ifkii markuu dumay oo habeen la gaaray ilaahay baa afartii cirif wuxuu ka keenay roob aan caadi ahayn oo ayaa ilaahay cirka ka keenay kadibna daad ayaa carradii isqabsaday saxaabigii meydkiisiina daad ayaa qaaday waanay ay waayeen maalintii dambe way waayeen meel ay ka keenaanna way waayeen dib dambe maba la arag ilaa maantadan meel laguma sheego caasim ibnu thaabit radiallahu canhu ilahay ka raali noqdo sidaas ayaana ilaahay ku ilaaliyey meydkiisii inuu gaaro islaantaas sulaafa binti sacad la yidhahdo haddaba daawade qisadaas ayaan kugu talagalay maanta inaan kula wadaago haddii aad halkan soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay sheerta iyo sabskaraabta iyo laagtu waa xaggaaga waa adiga gobonimadaada aad baad u mahadsan tahay la soco muuqaalka xog mahadsanid